السلام عليكم وعلى الخطاب. runtii waa xilli dambe waxaa la marayaa 5 saac iyo bar habeenimo. runtii xilli dambe xoogaa tahay waa waqtiga yacni hurdada, marka codkayga inaan hoos dhiga ayaa rabaa. saa darteed insha allah waxaan rajeynayaa inaad adiguna aad earphone gashatid oo aad maqashid. runtii mawduuceena maanta waa mid aad iyo aad muhiim u ah, waxaana kaa rajeynayaa inaad videogan daawatid ilaa iyo dhamaadka. waxaanu ka hadlaynaa sidee da-daada aad ku kordhin kartaa, sidee cumrigaaga aad ku dheereyn kartaa. way dhici kartaa walaalayaal, qof kaste waa uu jecel yahay in cumrigiisa loo kordhiyo, in cumrigiisa loo dheereeyo. qof kaste waa uu jecel yahay, laakiin ugu horeyn waa inaad saddex kala saartaa: cumriga waqtiga, cumriga ficilka, iyo cumriga dhabta ah. saddexdaas waa inaad kala saartaa. cumriga waqtiga waa qof kasta rabbi subxaanahu watacaala intuu u qoray. baaritaan markii la sameeyana cumriga waqtiga total yani wuxuu ahaanayaa 60 sano. cumriga waqtiga ma ahan wax la kordhin karo lana nusqaamin karo. waxaana daliil u ah allah subxaanahu watacaala wuxuu dhahay: walow yu'aakhidu allahu annaasa bima kasabuu ma taraka calaa dahriha min daaba walakin yu'akhiruhum ilaa ajalin musamma faida jaa ajaluhum faina allaha kaana bicibaadihi basiira. cumriga koobaad inaad fahamta ayaan rajeynaya oo ah cumriga waqtiga. qof kastana waa intuu rabbi subxaana watacaala u qoray. midka labaad waa cumriga ficilka. cumriga ficilka waxaa weeye yani hurdada oo kale, inta hurdeyno oo kale, intaa cuntada cunayno, intaa qubaysanayno, intaa masquul galayno, waxyaabahaas. midka saddexaadna waa cumriga dhabta ah, waa midka aan rabno inaan ka hadalno, waa midka muhiimka ah. cumriga dhabta waa maxay? cumriga dhabta waxaa weeye waa cumriga kaaga soo hara cumriga waqtiga, waa waqtiga kaaga soo hara cumriga waqtiga. waxoogaa inaad si fiican ii fahanto walaal isku day. kaba soo qaad qofkan cumrigiisa waxaa weeye, da-diisa waxaa weeye inta loo qoray waa 60 sano. 25 sano waa uu hurday, yacni marka hurdo 7 saacadood la isku soo dardaro adiga 8 saacadood 6 saacadood keenaysaa kale 25 sano. 5 sanana waxa uu cunayay ama uu cabayay ama masquul ku jiray. 10 sanana caruur ayuu ahaa. intaas marka la isku soo dardaro marka maxay noqonaysaa? waxay noqonaysaa 40 sano. maxaa soo haray 40 60 ka jar waxaa soo haraysaa waa 20 sano. markaas cumriga dhabta ah ee u haray waxa uu noqonayaa 20 sano. 20 sano gudaheed ayaad ku noqonaysaa dhakhtar ama engineer. 20 sano gudaheed ayaad ku noqonaysaa caalim ama mucallim. 20 sano gudaheed ayaad ku noqonaysaa gaal ama muslim. 20 sano gudaheed ayaad ku noqonaysaa mu'min ama munaafiq. 20 sano gudaheed ayaad ku noqonaysaa waxa aad adiga rabtid inaad noqotid, ama adduunyo ha ahaato ama aakhira ha ahaato. arrintan haddaan dhan kale ka fiirino waxayba noqonaysaa inaadan noolayn haddii aadan ka faa'iidaysan 20 sano. inaad ifaanta ayaan rajeynayaa. haddaba hadafkeenu waxa uu yahay sidee ku siyaadiyaa cumrigayga dhabta ah 20 sano maadaama uu yahay, sidee ku siyaadiyaa? ma waxaan yareeya waqtiga hurdada? ma waxaan yareeya waqtiga aan wax ku cunayo? maxaan sameeyaa? tusaale ahaan haddii aad yaraysid waqtigaaga hurdada, waxaa kugu dhacaya madax xanuun, madax wareer, caafimaadkaaga si kale ayuuba noqonayaaba. 2 hab ayaa jirta, 2 qaacida ayaa jirta oo aad ku kordhin kartid cumrigaaga dhabta ah. midda koobaad, inaad seexatid waqti hore soona kacdid waqti hore. inaad seexatid waqti hore soona toostid waqti hore. culimada waxay dhahaan waqtiga ugu fiican ee qofka wax soo saar uu leeyahay, waqtiga ugu fiican ee qofka uu wax qaban karo, waqtiga ugu fiican ee qofka maskaxdiisa si fiican u shaqeynayso ay fresh tahay waxaa weeye 5 aroornimo ilaa 9 subaxnimo. halkan u fiirso walaal, annaga ka muslim ahaan haddii aan salaada subax waqtigeeda ku tukano, kadib salaada subaxan aanan hurdo ku laaban oo aan waxyaabihii noo muhiimka aan qabsano waqtigeena aan ka faa'iidaysano, 2 faa'iido ayaan helaynaa. mid waa mid adduunyo oo ah waxyaabihiina ayaan qabsanay, midna waa mid aakhiro oo ah salaadii fajar ayaad waqtigeeda ku tukatay. ka fikir walaalkayga wanaagsanow. qaacidada labaad aan u nimaano. qaacidada labaad waxaa weeye walaal, kow waa inaad samaysid jimicsi. waa midda koobaad oo ah inaad samaysid jimicsi, jirkaaga yacan waa inuu jimicsi helaa. midda labaadna waxaa weeye cunto caafimaad leh waa inaad cuntid. midda saddexaadna waxaa weeye inaad iska ilaalisid caadooyinka xun sida sigaarka, qaadka,
يعني waqtiga inaad filmaan iyo musalsal ku dhimisid caadooyinkaas xun oo dhan waa inaad iska ilaalisid. ogowna walaal haddii aadan jimicsi sameyn oo aadan caafimaadkaagana ka fekerin cunto fiicanna aadan cunin iska daa inaad cumrigaaga dhabtaa ka faa'iidaysatee waxaadan ka faa'iidaysan karin cumriga waqtiga oo cunto yacni caafimaadkaaga wuxuu noqonayaa galab. ogow walaal cumriga dhabta ah waa cumriga aad ku noqon kartid wax kasta aad adiga rabtid. cumriga waqtiga qof kasta wuu isticmaalaa, qof kasta waa uu cunaa, waa uu cabaa, waa uu seexdaa, laakiin dadka kama ay faa'iidaystaan cumriga dhabta ah. haddaba haddii aad ka faa'iidaysatid cumrigaaga dhabta ah waxaad noqonaysaa qof guulaystay. haddii aad cumriga dhabta aad dheeraysidna waxaad noqonaysaa qof guulo waaweyn soo hooyiyey. hagaag ma jiraan waxyaabo kale oo la xiriira dhanka muctaqadaadka iyo diimaha oo cumriga dheerayn kara? haa, annaga haddaan u nimaano diinteena islaamka nabiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu dhahay man sarahu an yubsata lahu fii risqihi wa yunsa'a lahu fii cumrihi falyasil raxima. xadiiskan wuxuu na tusayaa in haddii aad qaraabada xiriirisid uu cumrigaaga dhabta ah uu kuu siyaadayo. si lamidana nabiga sal alla alay wasalam wuxuu dhahay khayru nnaas man taala cumruhu وحسن عمله. حديث كان ولا ليال سعد وحو تلماميا إن عمرك أونا نهين تراضى بل أوي هاي هادبا قفك سوء كفايديست هادبا أنبلونا إن كفايديسانو عمرك هنا دبتاع سو ديار متيت إن شاء الله فكرة حينو يسيد كما تغنو سوقر بإذن الله واتكم أنسان تايدا وشادا وقرح ضبطا. السلام عليكم.